Turkish Airlines ayaa shaacisay inay qorsheynayso duulimaad toos ah oo ay ku tagto magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, taasi oo qayb ka ah dadaal ay ku ballaarinayso duulimaadyada Afrika. Turkish Airlines ayaa hadda Soomaaliya ka tagta kaliya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, balse waxay shaacisay inay dhowaan qorsheyn doonto inay duulimaadyo ka bilowdo Hargeysa bilaha soo socda. Shirkaddan laga leeyahay dalka Turkiga waqti rasmi ah uma qaban xilliga ay bilaabayso duulimaadyada Hargeysa. Duulimaadka Hargeysa ayaa qayb ka noqon doona 3 duulimaad oo cusub oo Afrika ah oo Turkish Airlines ay bilaabayso bilaha soo socda, iyada oo labada kale ay yihiin Aswan oo Masar ah iyo Port Sudan oo Suudaan ah. Go'aanka ay Turkish Airlines ku bilaabayso duulimaadyadeeda qaaradda ayaa yimid kadib markii ay shaacisay in dakhligeeda 6 bil ee ugu horeysay ee sanadka ku kordhay 27.5 boqolkiiba oo u gaaray 7.6 bilyan oo doolarka Mareykanka ah, isla markaana ay xareysatay faa'iido ah 664 milyan. Turkish Airlines ayaa hadda u duusha 62 magaalo oo ku kala yaala 41 dal oo Afrika ah. Bishii May, shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines ayaa bilowday duulimaad toos ah oo isugu xiraya Muqdisho iyo Istanbul, iyada oo meesha ka saartay hakadkii ay ku samayn jirtay Djibouti. Turkish Airlines ayaa waxay si toos ah uga shaqo bilowday Soomaaliya 6 Maarso 2012 iyadoo isaga kala gooshi jirtay garoonka hore ee Ataturk iyo Muqdisho. Duulimaadkaas ayaa bilowday 7 bilood kadib markii madaxweyne Erdogan uu xilligaas ahaa ra'iisul wasaare uu booqday dalka markii ugu horeysay. Waxay markii hore Muqdisho tagi jirtay 2 maalin toddobaadkii iyada oo ku hakan jirtay Khartoum, balse waxay kadib hakashada u wareejisay Djibouti bishii Agasti ee 2012.